waa muhiim inaad xor ahaato una fikirto sida ay kula quman tahay adiga oo aan cid kale raali gelin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دو رومينتي نمريا هدي aad ku cusub tahay subscribe saar. maxbuus ha u noqonin afkaarta iyo hadallada dadka kale. isbeddelka nolosha iyo ikhtiraca waxaa horseeday shakhsiyaad keligood taagan oo lagu wada raacay fikirkaaga xadeen ee siidaa. qofka afkaarta dadka kala rumaysta ma ahan inta badan mid guulaysta, maxaa yeelay wuxuu raali gelinayaa dad gaara. waa muhiim inaad xor ahaato una fikirto sida ay kula quman tahay adiga oo aan cid kale raali gelinayn. dadka wixii fikir wanaagsan aad u aragto ka qaado, balse ha isku taxalluujin inaad cid kale raali geliso. ugu dambeyntii, noloshaada iyo nafta aad mas-uul ka tahay adiga uunbay ku haystaa. ka fikir arrin had iyo goor warwar iyo walaaca kugu haysa. madax arrintaa u gal oo ka hadal, ama qofka ay arrintaasi kaaga jirto si toos ah u wajah adiga oo niyadda sii gashanaya inay sida ugu xun wax u dhici karaan. marka ay arrin aadan kula soo gudboonaato, ha nixin oo taladu yaysa kaa qasmin. u muuqo qof isu kalsoon xataa haddii aan xalka hayn. haddii ay kaa muuqato kalsooni oo aad degan tahay, waxaa dhici karta in aad xal keento. dadku waxay jecel yihiin inay la macaamilaan qof kalsooni leh, xitaa haddii aanu ahayn qofka ugu aqoonta badan ama ugu waaya aragnimada badan ee meesha jooga. qofka isu kalsoon ee wejiga furfuran waxa uu kalsooni badan geliyaa dadka ag jooga. haddii se aad khalkhasho oo aad kolba dhinac u boodo, marnaba xal keeni maysid. intii aad garanaysana way isaga kaa dhex yaacaysaa. waxaa jira xoog aanad arkayn oo aan rabin in aad hore u socoto. xooggaasi ma doonayaan in aad ka dheerayso, mana doonayaan in aad muuqato. waa xoog sharcigoodu yahay in la isku dhex jiro oo isku tallaabo lagu wada socdo. haddaad ka dheerayso waxaa lagu samaynayaa cilad, haddaad ka gaabisana sidoo kale cilad ayaa lagu samaynayaa. balse ogsoonow in dadka wax hindiisay ee horumarka keenay ay yihiin kuwa diiday in xero yar lagu hayo. waa kuwa jebiyey jeelka fikirka ee naftooda ka xoreeyey, ee u madax bannaanaaday fikradooda, ee noloshooda ku wajahay xawaaro dheereeya. waxaa jira marar uu tashuush kugu furmayo oo uu kaa kala tuurayo qorshahaaga. qaarkood waa dad si toosa kuula hadlaya oo odhanaya waxaan aad waddo hore ayaa loogu soo daalay ee wakhtiga ha iskaga luminin. marka qaarkood waxaa laguu sheegayo wax u eg ayaa isu kaa sawiraya oo laga yaabo in aad rumaysato. marka aad hadaf leedahay, waxaa jira qaar nolosha hore uga dhacay oo si dadban kuu niyad jebinaya. hebel iyo hablaayo oo aad taqaano wataa dadaalkeedii aan waxba ka haynin. waxaa jira marar aad adigu naftaada tashuush ku furayso oo aad odhanayso waxaan aad waddo maxaad ka faa'iidaysaa, jaamacaddan aad waddo maxaad ku falaysaa. maad xoogsatid u kaa qeyrkaa yurub wada tegay. tashuushka noocaas ah haddii aad la qiirooto oo aanad xisaab ku darin, waxa ay u badan tahay in aad khasaartay. dhib yar oo markaa kuu muuqda yuu ku jahwareerin oo yuuna mustaqbalkaaga kaa lumin. waxaa dhici doontaa maalin intaad hadafkaaga gaadho, haddii ilaahay yidhaa, oo aad dib u soo eegto wakhtiga aad soo martay, ood odhan doonto nasiib ayaan lahaa inaan hadafkaygii ku adkaystay. jilicsanaanta iyo doqoniimadu meela ayay iskaga egyihiin. khatarta qaado oo u bareer go'aan ay dhici karto in aad ku faa'iido ama aad ku khasaarto. marka ay arrin kula soo gudboonaato ee aad garan weydo sida saxda ah, naftaada dhegayso. waxay u dhowdahay in sida aad adigu dareersan tahay ay tahay sida ku wanaagsan adiga. dadka guulaysta waxa ay u badan yihiin kuwa diida inay hukunka raacaan, balse ku dhaqaaqa waxa ay naftooda kula hadlayso. waa muhiim inaad dhegaysto dadka kale, balse khasab ma aha in aad raado waxa ay dad kale kuu sheegayaan, xataa hadday kaa badan yihiin. dadku ra'yi iyo tale ayay kuu leeyihiin, balse go'aanka adigaa iskale. cid kale ha ka qayb gelin go'aanka noloshaada khuseeya. marka aad yara warwarto iyadoo aan dhibaataba ku hayn, ama aad wax ka niyad jabto, nafta xasuusi xilli aad guula soo samaysay. guulaha iyo wanaagga hore ee ku soo maray oo aad xasuusataa waxaanay soo kicinaysaa awooddaadii, oo nafta ayaa kuu sheegaysaa inaad tahay qof guul samayn kara oo horeba isu sameeyey. nafta ayaa ku odhanaysaa ha isdhiibin,
mararka qaarkood daawo sawiro hore iyo xusuus hore ama shahaadooyin aad qaadatay. akhriso wixii hore aad qortay waqtiyadii macaanaa oo nafta u sheeg inaad tahay kuu sameeye. qofka aad tahay unbaa tahay, lagu bedeli maayo. sidaa awgeed naftaada ku kalsoonow, adigu ha isquursan, naftaada run kula noolow, markaasay duniduna adiga run kugula noolaan. ha isbarbardhigin qof kale, waayo waa kala duwan tihiin. waxa adigu aad xiisiiso iyo waxa aad ka hesho way kala duwanaan karaan. waxa qof kale xiiseeyo ha is odhan maxaad hebel ama heblayo oo kale u noqon weyday. qof walba isagaa iskii u fariisan oo u qurux badan isagoo aan isbarbardhigin qof kale. marka aad kalsoonida isgeliso waxa ay u badan tahay in dadkuna sida aad rumaysan tahay kuu arkaan oo kuu ixtiraamaan.